kooxda Manchester United ayaa waxa ay garoonkeeda Old Trafford ku xasuuqday kooxda hogaaminayso Bundesliga Jarmalka. Kooxda martida loo ahaa ee Manchester United ayaa ciyaarta waxa ay ku badisay 5-0, inkastoo kooxda martida ah ay bilowga ciyaarta dardar xoog leh ay ku soo gashay. Haddana kooxda Manchester United ayaa waxa ay dheelaysay banooni rogaal celis ah, hase yeeshee daqiiqadii 21aad ayuu ciyaarta xidigooda Mason Greenwood waxa uu u dhaliyay Manchester United goolka furitaanka ah oo ciyaarta ka dhigay 1-0 daqiiqadii 21aad. Ciyaarta ayaana waxaa lagu kala maray 1-0 ay hogaanka ku hayso kooxda Manchester United oo kulankii horena ka soo badisay kooxda PSG furitaankii Champions League lugtoodii ugu horeysay. Kooxda Manchester United ayaa markii Camle isku soo noqday tababarahooda Ole Gunnar Solskjaer waxa uu sameeyay 3 bedel asaga oo ciyaarta soo geliyay Marco Rashford, Bruno Fernandes iyo McTominay. Ciyaarta oo marayso 76 daqiiqo ayaa waxa 2-0 ka dhigay Marco Rashford. Daqiiqad kadib Marco Rashford ayaa ciyaarta waxa uu ka dhigay mar kale 3-0. wax yar kadib rigoore loo dhigay kooxda Manchester United ayaa waxaa gool u bedelay ciyaaryahan Antonio Martial. Ciyaarta oo dhamaarabtani waxaa goolka shanaad saxiixay ciyaaryahan Marco Rashford oo saddexleydiisii dhamaystirtay kubaddii garoonkana qaatay. Kooxda Manchester United ayaa saan waxa ay gruubkooda u hogaaminaysaa 6 dhibcood ayadoo labadii kulan ay soo dheeshay dhammaan badisay. Kulankii hore ayay waxay ka soo badisay kooxda PSG oo ay kaga soo badisay 2-1 halka ay caawana BR Leipzig kaga badisay 5-0. sidoo kale waxaa wada ciyaaray kooxaha Barcelona iyo kooxda Juventus. Kooxda Barcelona ayaa kusoo karbaastay Juventus gurigeeda, ciyaartaas oo kusoo dhamaatay 2-0. Kooxda Barcelona oo sabtigii la soo dhaafay wajikabax kala kulantay kulanka El Clasico ee garoonkooda Camp Nou kaga soo badisay kooxda Real Madrid 3-1 ayaa waxa ay caawa ceebtii iskaga mayrtay kooxda Juventus oo ay marti u ahayd. Gool uu dhaliyay bilowgii ciyaarta Ousmane Dembele, goolkaas oo ahaa gool aad u qurux badan oo una ka darbeeyay meel aad uga fog xerada ganaaxa oo boortaha Juventus uu haweysan waayay in uu goolka badbaadiyo, ayaa ciyaarta ugu dhiibay hogaanka kooxda Barcelona oo marti u ahayd kooxda Juventus. Kooxda Barcelona ayaana waxay ciyaarta kusoo gashay dardar xoog leh ayadoo ay qalqal laga dareemayay kooxda Juventus ee ku ciyaarisay gurigeeda. 3 gool oo dhaliyay Alvaro Morata ayaa 3dii goolba laga diiday kooxda Juventus. Goolasha 3 ah 2 kamid ah waxaa diiday oo laga xaqiijiyay VAR, halka goolka 3aadna uu ahaa mid cad oo uu hobseed ku jiray. Kooxda Barcelona ayaana waxa ay heshay goolkeeda labaad qaybtii dambe ee ciyaarta, waxa uuna ahaa rigoore oo u saxiixay Leo Messi. Kooxda Chelsea waxa ay gaartay guushoodii ugu horeysay xilli ciyaareedkan ee Champions League kadib markii kulankoodii furitaanka ay barbaro 0-0 ah ay kula galeen garoonkooda Stamford Bridge kooxda reer Spain ee Sevilla. Kooxda Chelsea ayaa caawa waxa ay u safartay wadanka Ruushka ayadoo halkaas kula soo ciyaartay Krasnodar kooxda la yiraahdo. Ciyaarta ayaa waxayna kusoo dhamaatay 4-0 ay guusha kusoo raacday kooxda Chelsea. Kooxda Chelsea ayaa waxa ay heshay bilowgii ciyaartaba rigoore loo dhigay kooxda Chelsea, hase yeeshee waxaa goolkaas khasaariyay Jorginho oo laga qabtay. Qaybtii dambe ee ciyaarta ayaana waxaa hogaanka u dhiibay ciyaaryahanka da'da yar ee Ingiriiska Callum Hudson-Odoi oo ciyaarta ka dhigay 1-0 iyo gool uu rigoore ahaa uu gool u bedelay Timo Werner iyo gool
oo dhaliyay Hakim Ziyech oo akoonkiisa goolasha Champions League Chelsea furtay kulankiisii ugu horeeyay ee uu ciyaaray kooxda Chelsea. Goolka afraadna waxaa u dhaliyay kooxda Chelsea Christian Pulisic. Kooxda Chelsea ayaana sidaas waxa ay ku soo raacday guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan Champions League. Kooxda Frank Lampard ayaana ciyaarta inteeda badan ku gacan sareysay ayada oo fursado badan abuurtay, halka kooxda martida loo ahaa ee wadanka Ruushkana ay ciyaar fiican iyo difaacyo aad ilqabad u leh ay soo bandhigtay. Kooxda Paris Saint-Germain waxa ay guul ay ku soo rafaaday ka soo gaartay kooxda reer Turki ee Başakşehir. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa waxaa ka dhaawacmay xidigooda ugu qaalisan ee Neymar. Ciyaartan oo ay kooxda Paris Saint-Germain ku rafaaday xagga goolasha ayaa dhamaadkii ciyaarta daqiiqadii 64aad waxaa goolka u dhaliyay Kane oo daqiiqadii 64aad gool furitaanka dhaliyay, halka da'yarka uusan u dhalin goolka 79aad. Ay kooxda Paris ku soo horeysay iyadoo weliba ku ciyaarayso gurigeeda, waxaana 2-1 kaga badisay kooxda Manchester United. Haddaba guul ay isku Paris Saint-Germain, Manchester United iyo Leipzig iyo kooxda caawa ay ka badisay ee reer Turki ay ku wada jiraan hal group, waxaana hogaanka u haysta Manchester United oo hogaamisa 6 dhibcood, halka ay 3 dhibcood Germany 3 dhibcood leedahay kooxda Leipzig. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij la mid ah, fi amaanillah.